السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا wanaagsan asxaabteena qaliga hamil baa joogtaan waxaad ku soo dhawaataan muuqaalka maanta waxa uu ku saabsan yahay arrin badan oo suuqani forex ku xeendaaban qof walba maanta suuqani rabaa inuu ka shaqeysto waxa hor yaala inuu shuruudahani uu buuxiyo muuqaalka maanta si caadiyan oo si jawi degan ah qof walba uu ku fahmi karo yaan asxaabta bahda barlaba forex iyo guud ahaaneed aan la wadaagi doonaa hadduu ilaahayno suuqani waxa uu horeen u baahan waxay tahay waa inaad leedahay joogteyn iyo ka go'naansho arrintaasi hadaad lahayn wax joogteyn la yiraahdo ama inaysan ka go'onayn inaad wax qabsatid marnaba suuqani kuma sii jiri doontid si kastoo aad u baratid sharci si kastoo aad nidaam u yeelatid oo rulku shaqeynaya aad u haysatid haddii maanta rulkaaga aadan ku shaqeysan oo aadan ka dhabin kaliya aysan hadalkaan noqonin oo aadan ficil u bedelin waxaad ogaataa in bariya kooban kaliya suuqan aad ku sii jiri doontid kadibna dadyooga maanta halkaasi ka yuusa oo dadyooga maanta eedeeya suuqani ayaad ku biiraydaa balse haddii aad leedahay rulku degsan ahdaaf iyo target waxaan ku ballan qaadayaa laydinkii inaad guulahaaga aad ka mira dhalinaysid qof walba maanta suuqan soo galay waa uu soo maray jab kuf kac wax walba uu soo maray laakiin qofkii soo dhabar adeegay ayaa maanta heer fiican ka taagan okay maxaa lagaga baahan yahay marka suuqani markaad ku soo biiraysid inaad haysatid agabyadii aad ku trade gareynaysid sida inaad haysatid laptop mobile iyo internet intaasi waa inta asaas ku ah balse waxaa ka sii aasaasan oo ka horeeya inaad haysatid position aad ku trade gareysid haddii laakiin trade-ka meeshaad ku trade gareynaysid iyo qolkaaga ama asxaab kaleeto ay kula joogaan oo sawaxan iyo buuq ay agtaada ku hareersan yihiin waxaad ogaataa inaadan weli aadan kobcin sida qofka ganacsadaha oo subaxdii u dheelmado sida qofka ganacsadaha subaxii u haajiro waxaa la rabaa inaad sidaas oo kale aad u haajirtid waxaa la rabaa sidaas oo kale inaad u diyaarsan tahay xitaa haddii qalku kugu dhegan uu yahay waa inaad u soo diyaar garowdaa taamka aad trade gareynaysid taa markaan kasoo gudubno suuqani waxaa loo isticmaalaa nidaamyo kala duwan ayo nidaamyo ayaa jira oo qof walba u shaqeeya adiga nidaamkay kuu shaqeeya oo aad fahantid oo aad istiraadid nidaamkani ayaad ka soo bixi kartaa nidaamkaasi xoogga saar qof walba qofka uu ka dadaal badan yahay ayay ku xiran tahay haddii maanta dadaalkaagu aad u sarreeyo qof ka mir dhalanaya ahdaaftiisa aad tahay waxaad ogaanaysaa in suuqani uusan kugu qaadanin 3 bilood in ka badan taa markaan kasoo gudubno maxaa kale lagaga baahan yahay markaan waa isla aragnay beeskii iyo wixii agabkii lagaga baahnaa iyo positionka ku trade gareynaysay qodobka xiga waxay tahay inaad yeelatid dadyo aad kaga dayatid suuqani tusaale haddii aadan lahayn hoggaan oo waxaa kaga dayanaysid waxba ku magaagayo hoggaankaasi muhiim maahan inuu live ku soo galo inuu kula socdo inuu ku arko muhiim ah waxyaalo ku shaqeynaya qofkaasi u soo shaqeeya hadaad haysatid waxba kagama baahnid youtube ka yeelan meel walba yeelan haddaba sidee arrinkaas ku heli kartaa marka arrinkaas waxaa ku dhabeey kartaa suuqani waa loo soo kala horeeyay haddii aad asxaab aad helaysid dadyo meel aad kala xiriirta aad haysatid dadkaasi si tartiib uga xiriir kadibna wadiiqadii iyo wadooyinkii ay mareen itus dheh kadibna mar wixii lagu sheegana qaad waxaadna mar walba hogaankaaga iyo liijaankaaga aad surataa dadka guuleystay marnaba ha ku xiranayn hogaankaaga dadka SL ka badan saale markaan dhahay dadka SL ka badan suuqa SL waa leeyahay ETB labaduba laakiin waxaan ugula jeedaa dadyo waxaa jira qaladaadkii galeen aysan u ahayn cilmi kaliya ku sii soconaya dadkaasi marka iska ilaali dad waxaa lagaga baahan yahay inaad ku xiratid oo haamahaaga iyo liijaankaaga aad ku xiranayso waxay tahay dadka guuleystay waayo qofka sarreeya ayaa la sii raacaa mooye qofka hoose lama sii raaca haddaba bahda barlaba forex asxaabta mar walba waxay la wadaagtaa arrimo badan oo suuqani ku saabsan intaa markaan kasoo gudubno maxaa lagaga baahan yahay waxaa lagaga baahan yahay casharadii waa heshay agabka waa heshay waa inaad go'aan yeelataa waa inaad soo baxda tiraahdaa waayo sababta aan suuqan forex u baranahay maxay tahay sababta aan suuqani aniga aan ahdaafta aan ka leeyahay maxay tahay isweydii qor table sameyso
meelaad book note samayso xitaa notion samayso waxaad meel ku nodgoraysid samayso isweydii ma jirta ahdaaf adiga ku riixaysa ma jirta adiga sababo adiga hurdada kaa kicinaya kuwaasoo runtii kugu dhiirigelinaya inaad suuqana aad ka tiragaraysid haddii intaas ay jiraan qoro warqad weyn ku soo daabaco meesha aad ku tiragaraynaysay hortaada soo dhigo okay taa markaan kasoo gudubno waxaa kala jirta in asxaabo fara badan ay jiraan adiga kugu hareeraysan asxaabadaasi qaar waxaa jira kugu dhiirigelinaya waxaad qabanaysid iyo qaar waxaa jira ka hor istaagaya isku day asxaabta inta badan jecel inay ka hor istaagaan horumarkaaga laga yaabo xataa inaysan xumaanka ahayn laakiin aysan garan karaynin waayo waxaa laga yaabaa inaysan fikir fiican ka haysan taa marka waxaad samaynaysaa iskaga tag oo u sheeg in maanta wixii ka dambeeya aad ku biirtay suuqani oo aad rabtid inaad lacag ka samaysid haddaba taa markaan kasoo gudubno waxaan hore u soo sheegnay oo aan dib haddaan idinkugu celiyo waxay tahay inaad agabkii suuqa lagaga baahan yahay haysatid kadib position aad ku trade garaysid aad haysatid kadib aad dadyo suuqani kaaga horeeyay aad liijaankaaga suratid iyo sidoo kale cashiro ah kuwaasoo kugu filan aad heli kartid taa markaan kasoo gudubno qodobka xiga waxay tahay oo adiga lagaga baahan yahay intaasi waan isla soo aragnay isku day in dhiirigelinta qof kale ku siiyo waxaa kaga fiican midka aad niyadaada aad dhiirigelisid waxaa la yidhahdaa external motivation iyo internal motivation dhiirigeli waxaa jirta dibadda iyo mid gudaha ah mar walba tan gudaha ayaa ku wanaagsan sababtoo ah waxay Soomaali tirahdaa laafiya aadan lahayn lix tallaabo ma dhaafto haddii qofka si walba wax kugu sheego aysan kaa go'oneyn waxba ma qabsanaysid oo waa lagu daalayaa kaliya mooyaane haddaba suuqani forex qof walba wax ka qabsaday qofkii maanta u soo jeesta cidna kama hor istaagayso teeda kale ma ahan suuqaaga baahan certificate ma ahan suuqaaga baahan luqad inaad baratid ma ahan suuqaaga baahan reerkee tahay yaad u dhalatay yaad ka tahay waan isnaqaanaa Soomaali haddaan ahanay taa in badan waa inay dilootay waa la isweydiiyaa laakiin ma ahan mid intaasi lagu weydiinayo adiga boss ku ah adiga managers ku ah adiga supervisors ku ah adiga leaderships ku ah wax walba adiga isku ah haddaba haddaysan jirin cid ku hagaysa oo adiga laga rabo inaad saagtid maxaa diidaya marka inaad rule samaysatid rulekaasi midna aadan khilaafin suuqani waxaad ogaataa xitaa haddaad nidaam baratid wax kasta aad baratid haddii nidaamkaaga oo kaliya hadal ka ahaado oo aadan ficil u bedelin waxaan kuu sheegayaa weligaa inaan waxba qabsanin sababtoo ah waxyaalo waxaa jira oo inta badan qofku ku yimaada markuu suuqani ku soo biiro oo emotional ah hadduu arko lacagtiisa SL ku socoto ama tradekiisa khasaaro ku socoto waxaa laga yaabaa inuu iloobo waxyaalihii uu u degsanaaba laakiin taas lama rabo waxaa laga rabaa oo inaad ugu soo talagashaa maanta khasaare intaan faa'iido intaan haddii khasaare maanta intaad heshitid okay is enough waan ku soo tala jiray waana helay waana ka tagay haddii faa'iido heshidna sidoo kale sidaas ugu tagaysaa haddaba waxaa jira marka dadyo dadka saameeya suuqani waa soo baratay akoomaa soo qaadatay waad soo baastay ama weliba guda jirtaa laakiin waxaa jira dadyo dadka saameeya dadkaas iska ilaali dadkaasi waa dadyo maanta adigoo tireed raadinaya ama tireed ku guda jira maanta TV ku soo qoraya ama ku dhahay tireedkaas qaatay qofka marka waxaa ku furan zaxmad oo waxa uu doonayaa inuu sidoo qofkaasi oo tireedkaasi uu guuleysto marka waxa uu sameynayaa inuu ku tacadiyo oo tireedkii oosan bislaanin oo weli ceerin uu yahay oo sidaasi uu ku galo kadibna ay dhibaato ku timaado oo tireedkii uu ku khasaaro haddaba si taas lagu gudbo adiga cidnaha la tireed gareen maybe fikir waa kala qaadan kartaan sida hore u sheegnay laakiin cidnaha la tireed gareenin tireed kaliya kugu ekaado qof kale taadalkiisa waxba kaama galin dunidan kaliya ayaa ku soo biirtay adigoo cidna aysan kula socon adiga noloshaada mas'uulka ah in maanta inay gacanta ku qabato ku dhahaysa ma jirto soo bax laakiin waxaad ogaataa adiga un baa la rabaa inaad iswadid okay taa markaan kasoo gudubno waxaa kaloo jira maalmo la tireed gareeya suuqani
maalmo la trade gareeyaa jira suuqani maalmahaasi waxaa ka mid ah isniinta ilaa jimcada maalmo waxaa jira aan suuqan la trade gareynin sabti iyo axad okay maalmahaasi shanta maalin suuqan la trade gareenayo xitaa waxaa jira xilliyo la trade gareeya waana xilliyada taqaanid xilliyada ugu fiican suuqan la trade gareeya waa xilliyada London iyo New York session London session haddaad shaqaynaysid oo mashquul aad tahay oo barnaamij kale aad ku jirsid New York ayaa kuu furan sidoo kale New York haddaad shaqaynaysidna waxaa kuu furan London inaad shaqaysid gabi ahaan haddaad wada shaqaysidna xilliga aad fursad u soo heshidna Allah ku gaarsiina suuqan iyo maadid inta markaan isla aragno oo suuqa xilliyada la trade gareeya iyo maalmaha la trade gareeya iyo akoomada aan isku imaana marka qaabka akoonada loo sameesto akoonada challenge-yada kama hadlayo akoonada live kama hadlayo akoonada deemada deemo waa meesha kaliya asaaska qofkaana soo marina suuqani waa uu ku dhumayaa dad badan waxaad arkaysaa iskala weyn akoon inay qaataan dhahayaan anigu haddaan akoon deemo qaato dabcan liinaan u laakiin liinaan ma ahan ee waa halka aad ku tababaranaysid haddii laakiin aad iska mootisid oo aadan ula dhaqmin si akoon saxan oo kaleeto waxaad ogaataa akoon saxan hataa haddaa qaadatid sida aad kan ula dhaqantay aad kaas ula dhaqmaysaa akoonkaaga deemada furo kadib isku day inaad akoonkaaga deemada ruulkaaga ku degsan aad ku qaadatid midna aadan khilaafin xitaa qof walba hadduu wax kuu sheego xataa aadan qaadan hadalkiisa waayo waxaan waa lacag haddii maanta aad qaadatid qof hadalkiisa waxaad ogaanaysaa in lacagtaadii aad qofkaasi u dhiibtay oo sidoo doon oo ka yeelay marka amar qof bini'aadan kala ku shaqaynin kaliya inaad fikir wadaagtaan maybe laakiin trade marka inta wada qaadanaysaan isku day inaad intrigaasi aad kaliya aad qaadatid sidoo kale waxa kala jira haddii trade asal kaaga dhaco tusaale deemada akoonka haysata trade asal kaaga dhacay trade marka asal kaaga dhaco maalintii inta trade aad ku soo tala gashay soo qaad warqad balaanka qorshaha kamid ahaato aniga maanta laba trade ayaan qorshahayga tahay waxaan risk gareynayaa 1% waxaan ogolahay inaan 3% ama 2% oo profit aan helo targetkayga waa intaas qoro haddii labada trade aad heshid waa qeyr haddaa weysanaan runtii cidna feer ma jabna oo iska gadka suuqa sidoo kale haddii asal kaaga dhaco maxaa la sameeyaa haddii asal kaaga dhaco oo labada trade oo mid kamid asal kaaga dhaco tusaale London baa hal trade heshay London trade-kii aad heshay asal buu kaaga dhacay asal buu kaaga dhaco New York maxaa ku bana hal trade inaad qaadatid New York waayo laba trade qorsheysay maalinta inaad qaadato soo maaha New York halka trade baa qaadanaysaa hadduu TB kugu dhacana sidaas ayaad ku macsalaaminaysaa hadduu asal kaaga dhacana waxa qorsheysay in laba trade maalinta asal kaaga dhaceen sometimes dad waxaa jira oo trade risk gareeya 1% kaliya oo gool maanta hal trade asal ugu dhaco trade labaad aysan qaadaneyn runtii intaad ka fikiraysid profitka ka fikir asalka iyo khasaaraha ku soo gaaray waayo khasaaradu waa mid adiga ku saameynaysa wax ka jarmaya laakiin faa'iidadu iyo khayrka waxay tahay waa mid adiga ku siyaadaysa taa markaan ka soo gudubno waxaa kaloo jirta in maalmaha la trade gareynaya iyo weega aad trade gareynaysid iyo bisha aad trade gareynaysid xitaa inaad balaan ku samaysid tiraadid aniga maalinta isniinta oo kaleeto suuqa waa maalinta ugu horeysa furmaayo ma trade gareynay ama xal trade gareynaya xilliga New York session waa London waxa laga yaabaa weli inuusan dadyoogii ay fasax ku jiraan baladaas kadib aad iska qortid iskaga tagtid ama aad tiraadid maalintii jimcada oo kaleeto waa weekend ma trade gareynay sababtoo ah sidaan baa jirta oo aad ugu talagashay dhahdid aniga isniin iyo jimco ma trade gareynay saddexda maalin kaliya soo hartay ayaan trade gareynayaa haddii full trader aad rabtidna waa trade gareyn kartaa oo qorshahaaga ku darsan kartaa taa waa isla garana soo ma qodob kale waxay tahay waa trade gareysay oo trade-ki TB uu kugu dhacay oo trade badan baa qaadatay isku day inaad 10 trade aad qaadatid 10kaas trade kama wado inaad daily qaadanaysid oo maalintii aad qaadanaysid 10 trade inaad isku tijaabisid ama hal bil ha ku ahaato ama 2 week ha ku ahaato ama 3 week ha ku ahaato ama 1 week ha ku ahaato inaad 10 trade aad qaadatid 10kaas trade
waxaad ku ogaanaysaa ama aad ku sahminaysaa ruleka aad baratay halkuu ku joogo iyo meesha aad ka taagan tahay. 10 trade inta TB kaaga dhacdo iyo inta SL kaaga dhacdo ayaad isla fiirinaysaa oo isla barbar dhigaysaa. 7 kamid ah hadii TB kugu dhacdo, 3 kamid SL kaaga dhacdo, waxaad tahay nin ruleskiis in badan ixtiraama, fahamsan, lana socda. haddii laakiin 5 kamid SL kaaga dhacdo, 5 kamidna TB ku dhacdo, rulekii waxbaa ka fahamsantahay laakiin weli waxbaa kaaga dhiman inaad ku laabatid, wixii ka qaldan aad soo qortid, soo nood garaysid oo aad dib aad u sharxdid hadana. haddaba suuqani cid kaga xigta ma jirto. maanta waxaa la joogaa waa xilli oo qof walbo oo si nadiif ah cidna aysan haysan ku baran kara. 2024 ayaa la joogaa. maanta waa ay sahlan tahay inaad suuqani si fiican si nadiif ah aad u baratid. ruleska oo ay bahda Berlab FX ay ku tarid gareeyaan waa rules aad u kooban, qof walbana fahmi kara. qaybta gaarka ah bahda Berlab FX ay la socdaan waa ayna og yihiin ruleska bahda Berlab FX ay ku shaqeeyaan inay tahay rule aad iyo aad u fudud, balse u baahan in la sugo oo midna aan laga khilaafin. taas macnaheedu ma ahan xitaa haddii rulekii ku wada waafaqa trade-ku SL waa ku dhici karaa. xitaa haddii trade-ku rulku wada waafaqa SL waa ku dhici karaa. SL waa part of the game, waa part of trade. qofkii maanta xilligan la joogo oo SL ka baqa suuqani uma diyaarsane inuu ku soo biiro. haddaba maxaa laga rabaa marka? waxaa laga rabaa inaad u diyaarsan tahay aysan waxba kaa bedelin maanta haddii trade SL kaaga dhaco. walwalin, fikirin, aan isku imaanno markaan qaybaha challenge-yada. sanadihii dambe waxaa soo kordha waxay ahayd in shirkadooyin fara badan challenge laga qaato. challenge-yadaasi waa challenge-yo qaarna shirkada macquul qaarna ah shirkada iska yaacay. shirkadaha haatan Soomaaliya inta badan ka shaqeeya ama Soomaaliya u ogol waa ay fara badan yihiin. dadka Soomaaliyeed maanta shirkadaha inta badan ay ku trade gareeyaan ama challenge ka haystaan waxaa kamid ah FTMO, Fundnext, Fundbib, shirkadooyin fara badan ayaa jira. haddaba shirkadahaasi inta aadan galin ka hor tijaabi, research ku sameey. bahda Berlab FX muuqaal ay ka diyaarisay oo asxaabta cusub ay soo weydiiyeen ay ugu taliyeen. muuqaalkaasi waxaan dareemayaa in aan lagu talagelin asxaabtii hore ka haystay akoomada challenge-yada haysteen. kaliya waa la talin oo asxaabta cusub oo loogu talagalay. waayo keen qaataa ma FTMO waan qaataa mise Fundnext? inta badan Fundnext dhibaatooyinkoodii ayaan sheegnay, halse FTMO aad bay u muuqataa in ay tahay shirkad muddo soo jirtay, qaladaadkeedna aad u yaraa, wax weyn aysan laga sheegin. balse Fundnext asxaab badan baa ka soo cawaaday, asxaab badan baa dhibaato badan ka gaartay. laakiin maanta qofka cusub tala kaaga baahda maxaad kula talin lahayd? wixii aad kula qumanayd ugu talin lahayd. taa markaan ka soo gudubno, suuqani ka yeelo ahdaaf oo ka yeelo xilli jaango'an. maanta idil had dul joogin chartiga, computerka, laptopka, wixii adiga aad dul fadhiisid had dul fadhin maanta idil. soo wixii markaad soo toostid oo jawiga aad soo qaadatid in yar imaaw, at least waxaa ka badan 3 saac oo London, at least 2 saac oo London aad joogtid iyo 2 saac oo New York aad dul joogtid, 4 saac oo maalintii kaliya. inta kale aad xor tahay magaalkaada iska damaashaadaysid. faa'iidooyinka suuqani uu leeyahay maxay tahay? faa'iidooyinka suuqani uu leeyahay waxay tahay dhowr faa'iido ayaa jirta. faa'iidada ugu horeysa waxay tahay in maanta aad xor tahay. financial freedom waa shayga ugu fiican dunida. xornimo waa shayga ugu qaalisan adduunka la raadsho. maanta inaad xor tahay cidna aysan ku maamulin, cidna aysan maanta ku weydiinin intee ka soo daahday, intee ka timid, intee u socotay, cidna aysan ku dhihin. waa qodob koobaad. qodob kale waxay tahay maanta inaysan cidna ku ogaanin. adigu waxa ay soo gay bangigaaga kaliya, cid maanta ka warhaysa ma jirto inta aad haysatid. sidoo kale faa'iidada kale oo leeyahay suuqana waxay tahay waxaad maqli jirteen ardaygani ama qofkani da'dii waxbarashada macnaha waa uu ka weynaan. inkastoo waxbarasho laga weynaan, waxaa la yiraahdaa waa in koorsooyinka iskuulka sare loogu qaadaa, la karaariyaa. dabcan laba fasal wax la iskugu daraa, 5aad iyo 6aad isku qaato.
طبعا وإن هرلو سكيا هذا سوقني وحالك كلية ما أنت بدن لا أركي سنة كي أما بيل شيء لا أركي قف مليونيرة ولي بداير سيدان سلسو عنا الصومالي دينا ما أنت قف مليونيرة وداديس أفرتن كير آدو قرته أما ولا بشي أما إنه دحال كهلي أما إنه مسوق إيو إصدار ماري wax ku helay laakiin qof si caadiyan u shaqeysta oo daad afartan ka yar oo lacagtiisa intaas la eg aad bay dhifinadar u tahay marka suuqani waa fursad qof walba oo lacag ka sameyn karo dhanka kalena waa dhibaato qof walba oo lacag ku khasaari karo dadku waan u sheegnaa waayo qofka daad tirada kaliya faa'iido inta taalo oo aadan khasaarada ku gadaaman u sheegin dhibaatada gaartay adiga baa soo hadad u sheegin laakiin muhiimadda hadad u sheegtid in ganacsi walba sidoo faa'iido leeyahay ayuu khasaaro leeyahay suuqani u soo gal inaad ganacsi ahaan u soo gal ha u soo galin hebel baa ku jira hebelay baa ku jirta emotional iyo dareen iyo san ka noqon xiisan ka noqon waa ina ka noqota inaad suuqani mustaqbalkaaga aad ka mir dhalinayso guntii gunaanadkii muuqaalkan aad buu u dheeraaday waxa uu noqonayaa muuqaalada bahda Berlab FX kuwoodii ugu dhaadheer waxaan ugu talagalnay bahda Berlab FX saxaabta hase ahaatee muuqaalo kale to waxaa jira oo aan soo wadno oo suuqani ku saabsan bahda Berlab FX meel walba ay joogaan waxaan idin leenahay mar walbo muhiimadda iyo diiradda saara sidaad xirfad aad u baran lahaydeen qarash asaaska imaanaya waqtiga noqotaba sidaa darteed muuqaalkeeni bahda Berlab FX halkan aan ku soo afmeerina salaamullaahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh